darajiyo inaad mudan tahay dareen dastuurkani ka baro mudan tahay daryeel dastuurkani ka baro xuquuqiyo dadyo darajiyo inaad mudan tahay dareen dastuurkani ka baro mudan tahay daryeel dastuurkani ka baro بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيه برنامجكني فرينة دستورك برنامجكنا فرينة دستورك هو حينو صوت يارسو وزارة حريرك وقلياشة يارمها دستورك oo kaashanaysa wasaaradda warfaafinta cashirkeennii kan ka horreeyay waxaynu ku lafagurnay qodobka 67aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland cashirkana waxaynu ku falanqeynaynaa qodobka 77aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa barnaamijka la qayb galaya garyaqaan Khadar Maxamed Axmed oo aan jecelahay marka hore inaan barnaamijka ku soo dhaweeyo waan dhawahay walaal Kariyo aad iyo aad mahadsantahay garyaqaan bal hadda marka hore waxa aad sharaxaad guud ka bixisaa muhiimadda qodobkan 77aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka hadlayo isagoo oo qeexaya habka loo raaco xeerdejinta بسم الله qodobkan horta wuxuu kamid yahay mubaadin casharadeenii hore ku soo jirnay kaga hadlanay habka iyo hanaanka xeerdejintu ay marto marka laga hadlayo golayaasha xeerdejinta iyo qaabka loo dhaqan gelinayo iyo saxiixa madaxweynaha iyo muddada lagu faafinayo iyo xilligu dhaqan gelayo xilligu xeer noqonayo iyo xilligu mashruuc sharci noqonayo iyo waxyaabaha farqa u dhaxeeyaba iyo cidda keeni kartaba mashruuc sharci marka xeer la doonayo in la hindiso ama la curiyo runtii maanta waxaanu baranaynaa haddaba arrintii uu la xidhiidho habka loo raacayo xeerdejinta ayaanu baranaynaa qodobka 77 ka hadlaya runtii waana habka u wada shaqeynayaan golayaasha xeerdejinta iyo runtii golaha xukuumadda gaar ahaan madaxweynuhu ayaa kan runtii ku xusan inay isku dheelitirayaan marka laga hadlayo madamad kale awoodiisa inta u hubiyo u dheelitirayo si aanu awoodiisa xeerdejineed aanu ugu xadgudbin goluhu madaxweynuhu wuxuu leeyahay isaguna inuu awood ku hubiyo leeyahay markasta ogsoonow madaxweynuhu awood xeerdejineed male laakiin saxiixan iyo waxan waxa loo siiyay wax kala maahay wada shaqeyntoodii iyo inuu hubiyo oo checking gareeyo oo xakameeyo ayaa lagu talagalay labada gol madamad kale sharciga wuxuu kala u marinaya waa inuu xakameeyo oo uu saxo hadii uu sharciga yahay mid dastuurka hor imanaya amba awoodoodii la siiyay baa si qaldan ay u gutaan ama ay u isticmaalaan si uu u saxo u hubiyo runtii de maadaama xeer qaran uu noqonayo xeerkan curinayana ay wixii runtii iyagu markaa ay arkaan gaab ama ay arkaan dhaliil ay uga hadlaan uguna aqalkana tala u siiyeen si uu wax ugu daro ama wax uga bedelo sida ogeed qodobkan wuxuu ka hadlayaa arrintaas wuxuu ka kooban yahay ilaa 6 farqadood haddii aan si kooban dul marno qodobkan wuxuu tilmaamayaa labada gol baarlamaan midba ka kale markuu mashruuc sharci uu ansixiyo runtii uu ka soo baxo wuxuu noqonayaa wuxuu ka kala gudbinaya mid kala gudbinaya soo aqalka wakiiladu markuu xeerka soo ansixiyo xeer uu noqdo aqalkii guurtidu gudbinaya aqalka guurtiduna dib u eegis buu ku sameeynaya tala bixinna markaa uu ka dhiibanaya dibna waa ugu celin karaa waana ogolaan karaa runtii mabdahaan aqalka guurtidu uu diidi karaa saynu qodobada dambe ku arki doono sidoo kale wuxuu ka hadlayaa labada gole midka kale hal mar uu ku celin karaa xeer sababta labada aqal kale madax banaayin mid kale shaqadiisa ma hor istaagi karo caqabad kuma noqon karo laakiin hal mar uu tala ka bixi karaa xeerku ku celin karaa iyo wax ka bedelid uu ku talin karaa ama uu sixi karaa labada aqal kale madax banaan laakiin wada shaqeynaya isku in awoodooda dheeli tiraan weeyaan ahmiyadda san loo sameeynaya sidoo kale waxay tilmaamaysaa farqada saddexaad in xeerasaadyada aqalada baarlamaanku ay tilmaami doonaan habka ay mashruucyada sharciga u soconayaan gaar ahaan wuxuu qodobkani farqada saddexaad u xusaya waxa ku waajiba aqalada baarlamaanka inay dedejiyaan xeerarka waliba aqalka wakiilada arrintan aad ayay u khusaysaayeen xeerarka la xiriira maaliyadda iyo xeerarka kale qaranku markaa dareynaya sida xeerka nabadgelyada oo kale ay hore u dedejiyaan maadaama dan qaran ay ku xiran tahay runtii sidoo kale wuxuu ka hadlayaa mashruuc sharci oo kasta faqradda afraad qodobkan oo aqalada baarlamaanku ay labada goloba soo ansixiyaan 2/3 ay ku soo ansixiyeen oo min 54 xildhibaan oo 108 xildhibaan marka isku geysana inkastoo mid kastaaba uu gaarkiisa ku saasixin doono 2/3 oo min 54 xildhibaan inaanu madaxweynuhu celin karin uu saxeexayaan runtii sidoo kale
haddii markaasi uu arko inay ka hor imanayso dastuurkii dee wuxuu u gudbin doonaa xeraalyaha guud shir guddoonkana uu ogeysiin doonaa intaa waxay ka dambeeyeen xeraalyaha guud maxkamadda sare u gudbin doonaa taas iyaduna markaasi dee hadhow tole dacwad dastuuriga ka dhalan doonto maxkamadda sarena awood buu leedahay xeerarka inay laasho amaba runtii ay disaaba ku aydo ama qayb ahaanba ay laasho waana maxkamaddii ugu sarreysay qarankana dastuuriga ahayd iyadaana iskale awoodda ugu sarreysa marka xagga qaanuunka muran uu ka yimaado iyo arrimaha qaranka marka laga hadlayo amba laisku qabsado sidoo kale wuxuu mar kale tilmaamayaa madaxweynaha qodobkani inuu ku saxeexayo xeerarka muddo 22 cisho gudahooda inuu ku saxeexayo amaba dib ugu celinayo oo dib u celin madaxweynuhu leeyahay isagoo sababeynaya waliba maalinta soo gaaray xafiiskiisa dib u celin karaa muddo 22 cisho gudahooda isagoo sababeynaya muddo dib ugu soo celiyay oo qoraal waliba ugu gudbinaya ama uu saxeexaya markaasi haddii aanu ahayn wax markaasi sababeyna oo ku saabsan in dastuurka iyo ka hor imanaya danihii qaranka madaxweynuhuna waxa loo siiyay doorkan wax kale ma ahe waa inuu la xisaabtamo aqaladii oo hubiyo oo awoodoodii uu jaangareeyay inay tahay mid qaar u adeegsanaya sidii loo siiyay in ku takrifalen oo dastuurka ay ku xadgudbeen ayuu eegayaa haddii markaa madaxweynuhu markaasi mashruuc sharci oo ay u soo gudbiyaan aqalada baarlamaanka waa farqada ugu dambeysay lixaade uu muddadii loogu talagalay tirashada uu ku ansixin waayo ama uu dib ugu celin waayo runtii xeerkaas saas uu dhaqangal ku noqonaya waan gartay goorma ayaa golaha xukuumaddu uu labada gole midkood uu ka dalbanayaa in uu mashruuc sharci uu dedejiyo waase kuwa la dalbanaya inta badan كل حراسات ka hadlay qodobkan lagu tilmaamay oo faqradda saddexaad ba si kooban uga hadashay horta waxa si cad kan loogu tilmaamay xeerka maaliyadda maxaa loo siiyay intimaam gaar ah waxa loo siiyay de maaliyadda waxa ku xidhan shaqadii dawladda ku xidhan runtii maaliyadda in hore loo ansixiyo hore loo sii daaya waxay keensanaysaa in shaqadii dawladda la dhaqaajiyo oo waxa weyn haddii kala shaqaalihii mushaar heli maayaan ciidamadii mushaar heli maayaan macallimiintii mushaar heli dhaqaatiid because dhaqaalihii maaliyaddii qaranka gebigeediiba waa tan aqalkii wakiilada hortaala marka haddii uu la daaho amaba uu sidii caadiga kalfadhiyadiisa caadiga ahayd ay galaan waxay keenaysaa shaqadii dawladdu inay xidhato haddii miisaaniyadda loo sii dayn waayo dee qarankuna wuxuu ku shaqeeyaa oo daraska miisaaniyadda ku shaqeeyaa runtii markaasi aqalada wakiiladu ay ansixiyaan guurtadana ma marta miisaaniyaddu san hore kusoo sheegnay xeerarka dhaqaaluhu xeerarka runtii waxaan u jeedaa maaliyaddu waana qaar muhiim ah shaqada dawladda si awgeed waa in la dedejiya maadaama shaqada dawladda baa ku xidhan dawladda shaqadeedu istaagin xeerarka kale runtii xeeroosaadka aqalka wakiilada qodobka afartanaad farada toddobaad wuxuu tilmaamayaa xeerka nabadgelyada iyo xeerarka kale markaa muhiimka ah xeerka nabadgelyaduna ahmiyad gaar uu noo leeyahay oo waa in degdeg markaasi ay u dedejiyaan oo si haddii amni darra ay dhalanayso in la sii fadhiyaan xeerkii maaha waa in degdeg u dejiyaan si looga hortago markaas tallaabooyin loo qaado markaasi xeerarka nabadgelyada waxaa kaloo ka mid ah xeerarka ay dedejinayaan xeerarka runtii dee degdeg oo kale dee dawladdu ay gasho dagaal amba colaad xeerka 29 baa ka hadla muddo degdeg oo cayiman waa in aqalku markaa xeerkan uu ansixiyaa haddii xitaa fasax ku jirana waa la isugu yeeri doonaa qodobkaas aad u sharaxa way mashruuc sharci labada gole mid walba uu ku soo ansixiyay 3 meelood oo 2 meelood haddii madaxweynuhu uu arkay inaan muhiim ahayn muxuu yeelay kaba soo qaadba aqalada baarlamaanka ayaa waxay ku soo ansixiyeen xeerkan 3 meelood laba oo 4 xildhibaan madaxweynuhu anaga soo tilmaanay awood marka qodobkan la eego inuu xeerka dib u celiyo uu saxeexayaan haddii markaasi madaxweynuhu arko in xadgudub sharci ku jiro dastuuri muxuu yeelayaa in awoodiisii uu markaasi uu dib ugu celin lahaa uu ku hubin lahaa waa tan laga qaaday ama halkan lama siin awoodda sababtoo aqaladan ayaa la diiday in madax banaanidoodii uu ka hor yimaado oo shaqadoodii maadaama uu aqalkan aqal shacab yahay codka intaa leeg runtii ay ku soo ansixiyeen halkii xildhibaanada cod shacab ku fadhiya madaxweynuhu ma hor istaagi karo laakiin hadduu arko madaxweynuhu xadgudub dastuuri muxuu yeelayaa shirguddoonka horta ogeysiinaya shirguddoonada aqalada ogeysiinaya talaabada xigtana xeraalyaha guud buu gudbinaya xeraalyaha guudna waxa laga rabaa inuu dacwad uu oogo markaasi uu xeerkan ka dhana oo dacwad dastuuriya noqonaysa dacwadda dastuuriga waxay noqonaysaa markaasi maxkamadda sare dastuuriga ayaa laga hor oogi doonaa maxkamadda sare dastuuriga 3 mid baa u bannaan marka haddii xeerkii la yiraahdo wuxuu ka hor imanayaa dastuurkii oo la aqaladii waxay ku tagrifeen awood la siiyay maxkamadda sare markaa ayaa dheeli tirasa وثنا مدحوينه أود ملأ مركز صدق ملود مل لو ملود كسوان صحيح محكمة سرعة وحنا كل اللي ترسل صدق حب كو حيرن جبي سوى على كرتا شو تقول لي هيبة أود وصر سيادة سكلا ذلك محكمة السرعة وين وبعد يكون قاعدو شو ده كله غيب هم بالله على كرتا قطع بدقار شو ده كله
waxa laga yaabaa in dacwadii xeelaanta ay soo oogtay runtii aragtidii madaxweynaha ku saleysnayd uu qabay meesha bayna ka baxdo oo xeerka tiraa uu jiraya xeelnimadiisa maxkamadda sarena waa la hogaansamayo waa warteeda waa meeshii ugu sarreysay dalkan lagu kala baxayay waana runtii halka ugu sarreysa marka laga hadlayo go'aanada ugu sarreeya weeyaan hay'adii gaadhaysa weeyii hay'adana go'aankeeda qof kasta waa u hogaansamaya dastuurka ayna faraya qarannimadii dawladnimaduna waa inay jirtaa meel lagu kala go'o lagu dambeeya haddii kale wax weeyaan qaranku jiri maayo waa meesha ugu dambeysa marka lagu kala jiro weeyaan maxkamadda dastuurigaas way maxaynu ka baran karnaa casharkan ama qodobkan 77aad ee dastuurka runtii qodobkan waxaynu ka barananaa habka uu maro xeerarka marka la curinayo runtii ayaynu ka barananaa iyo habraaca xeer dejinteenu ka barananaa oo waxaynu barananaa kow aqaladan wakiilada iyo golaha guurtidu inay kala madax bannaan yihiin laakiin mid kale xeerkiisa uu gudbinayo kaasoo looga dan leeyahay inuu dibeegis kale ku sameeyo awoodii xeer dejineed uu hubiyo inay ku takrifaliyeen kale oo dastuurka hor imanaya xeerkoodani kadibna uu tala bixin ka uu bixiyo markaas tala uu ka siiyo sidoo kale waxaynu ka barananaa in labadan aqal mid kastaaba ka kale uu hal mar wax ka badan aanu ku celin karin xeerkii sidoo kale waxaynu ka baran karnaayo kale madaxweynuhu marka laga hadlayo xeerarka ay 2/3 ama 3 meelood laba aqaladan ku soo ansixiyaan inuu saxeexayo oo hor istaagi karin waxa kale oo ka barananaa haddii ay dhacdo xeerarka in muran ka yimaado madaxweynuhu uu aragti ka qabo oo aragti uu keeno sharci ah in dastuurka hor imanayo inaanu soo hor istaagin laakiin uu gudbinayo xeelaalinta guud isagoo markaasi marinaya markaasi ogeysiinaya shirgudoonka xeeraha guudna maxkamadda dastuuriga ayuu horgeyn doonaa maxkamadda dastuurigana saan hore soo sheegnay way ilaali kartaa xeerka ama qayb ahaan ilaali kartaa amaba sharcinimadiisa iyo dastuurnimadiisa ayidi kartaa runtii waxaan ka baranaa soo kale madaxweynuhu muddada xeerka uu ku saxeexayo oo 22 cisho gudahood ama uu ku celinayo wuu celin karaa wadada madaxweynuhu leeyahay duwarka dastuurkeena ka hor imanayo waa marka aanay 3 meelood laba aanay ku soo ansixin aqaladu weeyaan sidoo kale waxaynu ka barananaa mashruuca sharci baarlamaanku u soo gudbiyay madaxweynaha haddii 22 cisho gudahood ku saxeexay waanba ku celin waayo sidaasuu ku noqonayaa xeer dhaqangala oo runtii uu ku dhaqangalaya waxaana faafin doona insha Allah aqalkii soo saaraa faafin doona halkana waxa la ilaaliyay madax banaanida aqaladan shaqadooda xirjada inuu madax banaayin madaxweynuhu caqabad kuma noqon karo taasoo ka fahmanaa oo haddii uu halkan iska dhigto oo isagu diidan yahay celina waayo wuxuu ku celiyo macquulana waayo xeerkina uu diidan yahay ra'yi ahaan amaba inta badan de waa hay'ad siyaasi iyo amba siyaasad ahaan baa uu diidan yahay duwarkan iska dhigto marka ma dhalanayso inuu shaqadii aqalka uu hor istaago ama caqabad ku noqdo saasoo xeer ku noqonaya koos aqaladu kala madax banaayeen mabdahan shaqahaana way shaqadu kala sooxantay laakiin xeerarkan intuu mid soo curiyo ay marayso ka kala ama madaxweynaha iyo saxiixna madaxweynuhu waxa weeyaan isla xisaabtan isdheelitirid awoodii inuu mid ku takrifalo ayaa laga hortagayaa oo wadinka arkayo marka laga hadlayo haddii awrku dhinac u dheeliyo waa inay jirtaa cid kale oo dhinac dheeligaa u dheeliyo soo dheelitiraysa marka aqaladani saasay isku dheelitirayaan si aanay awoodii qaranka mid kale ugu xadgudbaan ugu takrifalin waana nidaam inta badan dee ay leeyihiin runtii dowladaha dimuqraadiga oo laga hortagay dictator awoodii gacanta marka hore looma gelin shakhsi kaliya awoodda qaranka la qiimeeyo 3 waxaad baa loo geliyo wada shaqeynayaan xiriir bileen way isdheelitirayaan way isla xisaabtamayaan runtii waan gartay aad iyo aad baad khadar mahadsan tahay intaasi waxaynu kusoo gabagabeynaynaa barashada qodobka 77aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland intaanu qodobka xiga aynu dib ugu kulmayno waa Khadar Maxamed Axmed iyo Sakariya Axmed Maxamed oo idinku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dastuurkiyo sharciga diinteena waafaqa dowladaha Afrika kaga duwan Somaliland isku duubni dhaba ducaysta amin